waxaan maantay ka mid ahayn wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka Tanzania booqasho rasmi ah u yimid. booqasho rasmi ah ayaa maalinka 27 oo Sabtida inoo bilaabanaysa oo labada dowladood ay ku kala saxiixan doonaan heshiisyo saddex ah oo xukuumadda federaalka Soomaaliya khamiistii la soo dhaafay la marsiiyay. heshiisyadaasi waxaa ka mid ah heshiis dhanka warfaafinta ah, heshiis guud oo wasaaradda oo ay saxiixayso wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska, heshiis kale oo arrimaha cadaaladda ku saabsan oo maxaabiista halkan ku xiran iyo isweydaarsigooda, maxaabiis Soomaali oo tiro badan ba halkan ku xiran ayaa heshiis laga gaarayaa in dalka la geeyo. iyo heshiis saddexaad oo heshiis general oo wasaaradda arrimaha dibadda ay saxiixayso. heshiiska labaad waxaa saxiixaya wasiirka cadaaladda, kan kalena waxaa saxiixaya aniga. marka sidaas maalinka Sabtida ah maalin booqasho rasmi ah madaxweynuhu ayuu bilaabanaysaa.